السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا آد أيان إذين سلام يا ومركلة يا ولاشين سحيبة بالقسم حرجينا يا أنا دمانتين أدوناك سنتين أنا الحمد لله أنت أدنا لجعشين إن ما أنت هدو إبعد ما وحينو كهضلينا برنامج أنك عافيماتك إن برنامج كاس أو قصابسن إن عذرك إن عقار شوقة إن ما waxa ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee hay'adda WHO ee caafimaadka ay u astaysay cudurkaasi cagaarshowga marka cudurkaasi hay'addu waxay qiyaasaysaa sanadkii 2019 inay u dhinteen 290 qof nooc ka mid ah noocyada caabuqaasi sanadkan hal ku dhageysana waxa ay ka dhigeen caawin degdeg ah ayaa loo baahan yahay sida aan wada ognahayna cagaarshowga waxa uu haleelaa dhanka beerka haddaba waxa qadka magaalada muqdisho ku jira walaalkeen Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadan waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka jaamacadda Jazeera sidoo kale waa bare jaamacadda muqdisho waxa uuna ku takhasusay cudurrada guud Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadan soo dhawow aad u maasan tahay bara jaamacadda Jazeera jaamacadda Jamhuuriya ayaan ahay waa maasan tahay Suhayba Maxamed Barqas aad u maasan tahay barnaamijka ay u martigelisay maanta insha Allah waxa u madcelinaya mahadsanid bal marka hore inta aan barnaamijka ayaan guda galaynaa horta sidiisaba cagaarshowga muxuu yahay doctor Suhayba inta aan ka hor hadlay marka hore cagaarshowga sida Soomaaliya u taqaano waxa waaye indhaha cagaarto laakiin waxa loo yaqaan cudurkaas cudur hepatitis ah oo Latin laga keenay cudurkaas heba oo beerkii ah iyo titus caabuqa beerka ku imaado marka Soomaalida maadaama calaamadihiisa ka mid tahay inuu indhaha qofka soo cagaarto ama jaallo soo noqdo ee wax u baxsheen cagaarshow marka cagaarshow waxa waa cudur ku dhaco beerkana hadhow nabar iyo kansar iyo dhibaatooyin badan u keeno marka asaga noocyo badan kala leh cagaarshow virus keeno marka noocyada inta aanan u gudbin marka maxaa keena isaga maxaa sababa Suhayba waxyaabo badan ayaa keeno cudurradaas waxa loo yaqaanaa kuwa u badan oo keeno waxa kamid ah viral hepatitis asaga marka wuxuu ka leeyahay 5 qaybood A B C D iyo E midka maanta wall hepatitis D-ga lagu talagalay waxa waa labada ugu qatarsan oo ah hepatitis B iyo C oo la dhaho silent killers waay marka waxaa tiri wuu noocyo badan yahaa tiri marka waxaa tiraahday marka waxaan ka hadlaynaa B-ga iyo C-ga kuwa kalena maxay yihiin kuwa kale waa kuwa ayaga laftigooda caabuq keeno laakiin ma halis badno sida B iyo C-ga midkaan hadda Soomaalida ugu badan oo ku dhaco waxa waaye cagaarshowga eego kale intuu kugu dhaco cuntada iyo wasaqda laga qaado afkii gacanta macnaha wax ka imaada ugu dhacayo ka bogsanaysid laakiin soo jireen aan ahaanin chronic isku bedelayo kaas ayaa waxa la dhahaa kuwa macnaha waa iska hepatitis laakiin sida B iyo C uma dhibno E-ga iyo A-ga waa ka fiican yihiin waa ka fudud yihiin waa ka halis yar yihiin B-ga iyo C-ga marka waxyaabo kale alcoholka keeno paracetamolka dawooyinka la qaataa keeno waxyaabo badan ka mid laakiin midka halista ah oo xitaa adduunka hadda la dhahay HIV AIDS iyo malaria iyo TB marka la isku daro dhimashadooda waa ka badan yahay dadka qaba B-ga iyo C-ga marka C-ga iyo B-ga ayaa xooga la saaraa maadaama kuwa kale la iska talaali karo haddana uusan qofka sii wadanaynin sidaan la socono cudurkan waxa uu ku dhacaa beerka bal waxaad inoo sheegtaa beerka iyo shaqadiisa waxa ay tahay aad waa maasantaa Suhayba horta beerka waa xubin aad muhiim u ah jirka bini'aadanka wuxuu ku yaalaa dhinaca midig qaybta kore ee caloosha shaqooyinku qabto waa aad u badan yihiin shaqo wax soo saar shaqo dheefshiid shaqo wax burburin iyo shaqo calcium iyo proteinada kale shaqada ugu muhiimsan marka waa shaqooyinka dhawaa muhiimsan yihiin laakiin shaqooyinka ugu muhiimsan waxa kamid ah inuu soo sameeyo jirka xinjirowga dheecaamo wuxuu soo siideeyaa ka qayb qaato jirka xinjirowgiisa waxaa kaloo kamid ah shaqadiisa in uu cuntadii aashiino dheefshiidkii meesha wasaq ahaan u soo saaray maadaama maada ammonium la dhaha soo baxayso hadhow ammonium oo qofka kuma gelin karto hadhow marka waxay samaysaa dheecaankaas meeshaas ayaa lagu jijibshaa waxay kaloo noo samaysaa keedin inay cuntadii cuntid maanta inta u baahan tahay maahan inta kale waxa lagu keediyaa beerka
dadka hadday sooman yihiin haddii safar galayaan inaysan gaajo qaban ama koma aysan gelin waxaa ka hortagaa beerka waxaa u keensan sokor u keensan marka keedayana waa noo yahay wuxuu kaloo noo yahay borotiino muhiim u ah jirka sida in vitamin D oo kaleeto meelaha looga dhigo inay shaqadii si fiican u qabato waxaa ka mid ah beerka marka isku soo duuduub shaqo 3 4 5 6 lagu soo koobi kara maahan marka shaqooyinkaas uu qabaa hadduu dhibaato ku dhacdana shaqooyinkaas dhan ayaa laga qabaa istaagaya ha marka bal ka waran ma la kala qaadi karaa haddii la kala qaadi karo sidee lagu kala qaadi karaa aad iyo aad u mahadsantahay Suhayba waa la kala qaadi karaa cudurkan haddaan ka hadalno shantoodaba aan taataabano eega iyo iiga badanaa waxaa la dhahaa waxaa lagu kala qaadaa faraha iyo gacmaha يعني dadka wuxuu ku badiyay dadka low classka wadamadan macnaha development countries dadka saboolka ahaa leeda hawlaadka dhiiqada dhaxarada iyo wixii gacmihii afka laga galo kaas ayaa lagu kala qaadaa marka waxay dhahan orofical gacantii afka oo macnaha istaabto oo saxarada intaas oo gacanta kusoo taabad ka bacdina aad wax ka cuntid ayaa lagu kala qaadaa waa eega iyo iiga iyo siiga ayaa waxay dhahan waxyaaba dheecaanka jirka iyo dhiigga ayaa lagu kala qaadaa waxaa lagu kala qaadaa for example waxa ka soo qaaday kana waagi hore hadda waa la soo yareeyay in dhiig la soo shubo qof dhiig la u baahnaado qof hepatitis qabo A ama B ama C hadduu qabo oo dhiig kale qof caadi oo fiican ku shubo uu ka qaadi karaa maadaama dhiig uu raaco waxa kale lagu kala qaadaa waxyaabahan garxiirta markii aan tagno meelaha timaha barbeeriga barbeeriga oo kaleeto waxyaabaha kale kamid ah cirbadaha needle wariyaha waxaan ugu soo kordhayo drug abuse dadkan cirbadaha wadaago intii dawo macnaha heroin waxyaabaha isticmaalaan taasna waa aad ayaa lagu kala qaadaa waxaa lagu kala qaadaa hooyada inay cunugeeda u gudbiso xilliga dhalaysa waliba u gudbin kartaa marka waxaa kale lagu kala qaadaa saksiga ama macnaha galmoodka laftigeeda lagu qaadaa marka isku soo duuduub waxa waaye wax jirka dheecaanka la socdo oo waliba viruskan waxaa lahaa biig oo kaleeto ilaa 7 saacadood ayuu bannaan ku noolaan karaa haddii qof cirbad hepatitis qabo intuu isku duro oo meesha uu dhigo 7 beri hepatitiskaas meesha ku noolaan karaa qof kale hadduu soo qaato isku durana saas ayuu ku qaadi karaa qofkii uu ku dhici karaa dheecaanka iyo dhiigga wax lagu kala qaado marka waxaad ka dhawaajisay macnaheedu waxay la macno tahay bahalka khatartiisu leeyahay marka waxaad ka dhawaajisay dhanka hooyada iyo dhalaanka hooyada inay u gudbin karto cunugeeda u gudbin karto ka waran hooyadii aanba ogeyn oo aanba isbaarin aad that's why hadda WHO waxay bilaawday campaign oo loo yaqaano la soo bilaabo 2016 ilaa taagi doona Vision 2030 2030 oo ah in screen lagu sameeyo hooyooyinka in macnaha hepatitiska la iska talaalo marka inta badan hadda waxaa jira wax la dhaho antenatal in hooyada markii antenatal ha antenatal care inay tagto inay markii pregnant ogaato laga baaro dhiiggeeda guud HB-geeda meesha marayo inay qabto hepatitis haddii hepatitis qabto cunugeeda waa laga badbaadin karaa waxaan sameynaa markii dhasho in cunuga laga talaalo isla markii hadhowna 3 talaal markuu qaato cunugeena uu saqaaday hadda 9% waxaa la dhahay Soomaalidana ku badan hepatitis B-ga adduunkana ugu badan yahay waxaa keena badan transmission from mother to child hooyada u gudbiso hooyada cunuga u gudbiso marka kaasana dhibaatada badan keenayo oo hadda chronic oo beerkii inuu qolf noqdo cirrhosis wax la dhaho cancer isku bedelo dhibaatada keenayo marka talaal ayuu leeyahay cunuga yarka waa la talaali karaa inta uusan ku dhicin ba okay marka calaamadihiisa maxaa kamid ah markaan cagaarshow maqal waxaan dhahaa indhahaaga cagaar noqday unbay Soomaalidu tiraahdaa maxaa kale oo calaamad u leeyahay si fiican horta cagaarshowga badanaa calaamadihiisa waxaa loo kala qaybshaa 3 qaybood marka koowaad calaamad jirto xilliga kugu jira marka viruska ay qaadid ama cirbada ku soo muday ama dhiig lagu soo shubay ama hooyada ka soo qaaday calaamad maliyad marka almost calaamadtaas waxay qaataa 14 beri ilaa 2 isbuuc oo kale wax calaamadahan soo bixinaysa waxaa ku xidhiidha xilli calaamado imaan doona calaamadahaasna marka waxaa ka mid ah calaamadihii caadiga ee viruska lagu yaqaan oo ah inaad dareemtid qandho yar lafa xanuun matag lalabo beer xanuun meelahaas midda saddexaad ecteric face la dhaho u dambayso waxaa inuu indhihii soo cagaartaan marka inta koowaad marka 1 2 3 markii la soo maray cagaarshow waxa maruu dhaawac imaado waa macnaha marka qaybta u dambayso inuu qofka cagaarshow noqdo indhihii soo cagaartaan gacmihii cagaartaan
kaadidiisa ay noqoto sidii shaax oo kale kafay oo kaleeto saxaridiisa kalar la'aan ay noqoto waxyaabahaas ayaa calaamadahaas ayuu leeyahay hepatitis marka anaga waxaan dhahnaa hadda qofka indhihiisa cagaar noqdo waaba meesha ugu dambaysaba waa meesha ugu dambe stageka saddexaad ecteric phase marka maxaa la yiraahdaa badana waxaan aragnaa Soomaalida sidaad sheegtay maaragtay dadka way isaga yar yihiin inay iska baaraan ilaa ay cudurka isku arkaan ama xanuun ay dareemaan mooyaane sidee tahayna badana hadda hooyooyinka waxaa tiri carruurtii u sii gudbin karaan marka hooyooyinka haddii aan ka hadalno annaga marka islaanta ay umusho waxaan siinaa waxaa loo jaraa hilib oo mataqaanaa wanaa la qalaayo idaa la qalaayo marka taas halisteeday leedahay soo maaha aad waa xilliga ugu badan waxaa dhahay boqolkiiba 90 hooyada cunuga ay gudbinaysa marka inay hooyada intii macnaha xoolo la qali lahaaba in la ogaado cunugan si loo badbaadin lahaa maadaama cunugan hadhow soo gudbin doona bulshada dhammaan uu sii gaari doono waa wax cudurka hepatitis B-ga waa cudur dilaa haddana qarsoon wuxuu ku fiican yahay kahortag uu leeyahay dawadiisa C-ga xataa asaga ka dawo xun oo lama daweyn karo waa dawo lala noolaan doono laakiin asaga wuxuu ku fiican yahay kahortag uu leeyahay 3 vaccine waaye hal bisha koowaad la qaato haddana bisha labaad mid labaad la qaato haddana bisha lixaad la qaato marka saddexdaas qaatid waxaa taa kulli waa ka hortagsan tahay biiga haddana wuxuu ku xun yahay Soomaalida inta badan ilaahay macnaha maqaadiirtiisa waxaa ku aragnaa inta badan inay leeyihiin iska difaacid waxaa arkaysaa hooyooyin badan oo iska difaaceen marka asoo qofka iska difaacay dhibaato kuma haayo laakiinse wuxuu gudbin karaa bulshadii kale u gudbin karaa qof aan iska difaaci karin ayuu gudbin karaa marka qof waxa waa hepatitis intuu ku dhacay ka bacdiina iska difaacay 6 bilood oo chronic oo noqon chronic waxa laga wadaa wixii 6 bilood ka bacdi qofkaas waxa waa beerkii inuu caabuq ku dhaco isku soo xoqmo shaqada dhan galo hadhow kansar xataa isku bedelo ayaa laga yaabaa marka sidee qofka isaga baari karaa marka wuxuu horta ku baari karaa badanaa inta badan waxa in dadka halista ugu jiro hadda waxa waa adduunka hadda waxa la bilaabo rabaa in dadka health worker dadkan hadda dental ka shaqeeya maadaama hadda Soomaalida aad meel walba dental laga soo furay cirbada ilgii markii ka waa dhanka ma taqaanaa ilkaha goobaha ilkaha kaleeto sterilization in lagu sameeyo macnaha jeermiska si fiican loo dirin mashiinadaas aan oolin mashiinadaas in ay qaybiyaan marka kuwaas oo kale hadii bilaaban waxyaabo screening hadda WHO lacag badan ayuu ku bixinaysaa sidii screening loo sameyn lahaa treatment loo sameyn lahaa vaccination loo sameyn lahaa sidoo kale marka waxaa loo baahan yahay dadka inuu macnaha meelaha garxiirta oo kaleeto baabiir markay tagayaan oo kaleeto inay cirbadooda goonida isticmaalaan mashiin gooni ah isticmaalaan dentistaha markay tagayaan meesha ilkaha la iskaga baxsho inay yaqaanaan dentista oo sterilizationkiisa la hubo qalabkii ku yaallo wax jeermis dilaha hooyada kale inay ogtahay inay biyo haddii qabto cunugeeda kaleeto la socoto inay hadhow talaaleyso dadkan dhakhaatiirta ay neersinkana ayaga gudbiyaan ayagana waxaa loo baahan yahay sidoo kale qof walba oo isbitaalka shaqeeyo ama health care worker isbitaalada hadda waxay uga bilaabeen inay screening ku sameeyaan shaqaalaha markay qaadanayaan oo inay ogaadaan inuu B iyo C qabo haddii kale inuu qabo macnaha cirbadii ku muday hadhow hadduu isku soo muday qofkii ku muday saas ayuu bulshada ku faafinayaa sidaas ayaa loo baahan yahay ما شاء الله مركا داوده waa taabatay waxa tiri kansiga waxa jirta cirbada loo qaato oo mataqana qofka uu la noolaanayo bal kuwa kala ka waran daawooyin ma leeyihiin B iyo C labadaba waa daawooyin laakiin sida hadda wuxuu ku fiican yahay adduunka hadda ka soo dhamaaday sida oo in daawooyinkiisa boqolkiiba 95 sida ka daawooyisi waa viruski almost ever laga dhigayo macnaha si hooso qofkaas hadduu xataa ka dawaa inuu yeerli sanadkii mar oo la socda inuu soo laaban karaa laakiin C wuxuu ku fiican yahay dawooyin 3 bilood la qaato hadda kiniyaal aad u fiican ay timaada adduunka 3 bilood la qaataa awal hore cirbadaha jiray 6 bilood la qaato hadda marka waxa waaye C-ga waa la daweyn karaa boqolkiiba 95 waa ka daweyn kartaa C-ga marka usoo laabana B-ga wuxuu ku xun yahay dhinac uu ka fiican yahay asagoo laga hortagi karaa oo cirbadii ka hortag ayaa qaadan kartaa dhinac uu ka xun yahay hadduu kugu dhaco lama daweyn karo weliga waa qabi doontaa marka dawo xadidayso numberka viruska ayaa marka la qaataa oo weliba inta badan long life in la qofka uu ka noolaanayo si wadan doono marka waxaad sheegtay oo iyadana ma taqaanadaan dib ugu laabana xitaa in laga qaado xitaa gogoshi laga qaado marka waa muhiim marka awal hore dadku waxay dhihi jireen oo HIV ga la iska baarayaa hadda waxa waa in lagu daro isagana cagaarshow
عادي مرات الأسد قفك أنت تقولسن قبل كيو لبعض قف أنت تقولسن كهر إنه سكرينينج صوص ميان بيجا سيجا إيش آي فيجا سيفلسكا واحد اللي قهرتي كانوا علميين وفي عنوا عندي وفي عنوا هذه بيئة قبتي وكلته بس كتلا لك هرتا المهاجي عادي أن بالشبر هرتا أياس كانوا قرن كرتين مركا وحى في عن مركا وهذا وحاتين سيدا مركا بي سي إيش آي فيجا لو باردي لحد ولا بعض ولا بعض سكرينينج كسو في عين iyo sida laftirkeeda dadka dhiiga lagu shubaayo xitaa sida aad tilmaantay sababtoo badanaa waxaan fiirinaa kaliya noocaas ma haysataa dhiiga ma adiga noocaas miyaa tahay kaliya marka qofkii xaalad degdeg ah ku jiro marka maba la sii fiirinaya wax kale oo badan aad waagi hore 1980kii waxa ugu badan oo hepatitis C lagu kala qaado wuxuu ahaan jiray dhiiga laakiin hadda waxaa la bilaabay screening dhiiga macnaha qofka markii la ogaado noociisa in la ogaado inuu ka bad qabo HIV-ga B-ga iyo C-ga oo lagu soo daro haddana waana yaraaday markii la bilaabo in screen lagu sameeyo bloodka qofka inta la seeko Dr. Maxamed bal ka waran Soomaaliya ayaa joogta xagga ayaad ka howlgashaa dhakhtar ayaa tahay ka waran bal dadka ma ku baraarugsan yihiin ma garanayaan heerkiisana halku gaarsiisan yahay wallahi baraarugeen aad u yar yahay aad iyo aad u qoseeyay waliba cudurkan B-ga aad ayuu nagu badan yahay Soomaalida waxa inta badan sax ku sheegay intii qaar ku dhacay qaarkood markaas sameysteen difaac kuwaas ayaa magaalada ku dhex jira bulshada ku jira kuwaas marka waxay ku leeyihiin magaca ay u baxsadeen aan jeclaaday reelay oo cagaarshowga dhiiga macnaha qofka uu qabo laakiin macnaha beerkiisa u nabad dhiiga cagaarshowga dhiiga sax macnaha waxay ka wadaan qofkan beerkiisa ma dhaawacayo laakiin dhiigu ku jira macnaha marka waxay ku tusinaysaa inuu faafin karo dhinacaas ka muuqsan marka qofka xaaskiisa inuu ka talaalo carruurtiisa ka talaalo mar hadduu qabo dadka ku hareeraysa dhan inuu iska talaala ay ahayd marka waa og yihiin in macnaha mar uu jiro difaac midaas kaliya ayaa lagu baraarugsan yahay marka waxaa fiican bulshada dhan mass screening loo bilaabo hadda dawladda kale oo dadaala ay wada inay bilaawdo hooyooyinka isbitaalada ku dhalayo inay screening sameeyso vaccinationkiina u diyaariso talaalkiina u diyaariso marka BC waxa arkaysa isbitaalada inay soo dhaafiyaan dad calooshi barray afkii dhiigga keenaya saxaradii dhiig soo raacayso indhihii cagaarteen baabeen kansar u dhimanayo waxba laga qaban karin marka intaas la gaarin ka hortag uu leeyahay xitaa hadduu kugu dhaco daawadiisa haddaa qaadatid control aad la socotid mar walba xaaladda meeshuu marayo waxa waa dib ayuu dhigaa dhimashada iyo dhaawaca marka ka waran dhanka cuntada saameyn ma ku leeyahay cuntada macnaha qofka markuu kugu dhaco badanaa inta badan waxaa la dhahaa proteiniska oo kaleeto iyo cusbada oo kaleeto waa la yareeyaa maadaama proteinka uu yahay in markii la jajabsho kaleeto beerkiina uusan shaqaynaynin hadhow shaqadaas beerkii meesha ay ka maqan tahay waxaa laga yaabaa proteinka inuu jirku aruro qofka kama u galo marka xagga cunnada waxaa badanaa lagu sameeyaa restriction xagga proteiniska oo la dhaho protein yar isticmaal fruitka iyo vegetableka ha badnaado saxarada caloosha maalintii laba mar musqusha gashid sidaas ayaa loo cusbadana sidoo kale waa in la yareeyaa maadaama cudurkan protein kale ka maqan yahay kaas oo alaalinayay dhiigga inuu ku hayo biyaha hadduu proteinkaas yaraado dhiigga jeedada kuma jiraya kabacdi xaguu aadaya lugihii aadaya calooshii aadaya saasay dadka u bararaan caloosha usoo barartaa lugaha usoo bararaan musawirada insha allah inay tusi doontid qofka caloosha bararsan iyo qofka lugaha bararsan oo kaleeto waa noo jiraan musawirada marana tusi doontaa marka dhibaatadaas u leeyahay marka bal ka waran hadda waxaa tilmaamtoo kale in kuwa qaarkood inkastoo aanan xasuusan noocyo qaarkood oo ku dhaca dadka saboolka ah Soomaaliya ognahay dad badan oo barakac ahaa ku dhex nool magaalada Muqdisho iyo banaankeedaba ama magaalooyinka kaleba dad qaxootiyada ku nool marka dadkaas oo kale noocyadaas oo kale sidee uga hortagi karaan waxaa sameeyaa safe protection ugu fiican hadda waxa waa adduunka anagana ma soo gaarin Soomaaliya marka arkin in la iska talaalo hepatitis A-ga waa la iska talaalaa talaal uu leeyahay laakiin qofka haddii ka waran Dr. Maxamed uu awoodi karinba oo qof oo sabool uu yahay marka hygiene biyihii la karkarsho musqulihii macnaha markii laga soo baxay saabuun gacmaha lagu dhaqdo kaleeto marka hygiene-kii la hordhiyo dawladda ka shaqeysa meelaha dhiiqooyinka fadhiisan oo laga xaaqo musqulihii sii weejadii la treatment lagu sameeyo sidaas marka safe hygiene la sameeyo ayaa looga hortagi karaa waa wax gacmaha lagu kala qaado inaad gacanta dhaqdid saxaanta iska dhaqdid musqusha markaa kasoo tegay saabuun aad iska marsatid waxyaabahaas ayaa prevention oo ah oo looga hortagi karaa dhanka nadaafadda in la hagaajiyo
aad ayaad u mahadsantahay Dr. Maxamed ugu dambeyn marka maxaad fariin ah oo aad u diraysaa dadka fariinta u diraayo waxa waaye fariinta WHO ee sanadkan u dirayso ee adduunka dhan hepatitis day 2021 wuxuu ku asteesan yahay in we can't wait ma sugi karno dadka inaysan ogeyn inay hepatitis qabaan ma sugi karno dadka inaysan iska tallaalin hepatitis B-ga ma sugi karno dadka og in hepatitis B qabo ama C qabo aysan daawo qaadanayn ma sugi karno hooyada inaysan vaccination siinin cunugeeda haddii hepatitis ay qabto marka waxa la leeyahay bulshada inay kacdo oo qof walba is ogaado inuu B iyo C hepatitis-yada uu qabo kabacdina dawooyinkii meelihii dhaqaatiirtii la xiriiraan la socdaan axwaashooda kuwa la socda xataa qabo hepatitis-yada oo kaleeto maahan wax raja uma waa qabi kartaa waana la noolaan kartaa saa oo la noolaatid waa inaad dhakhtarkaaga la xiriirtaa dawooyinkii la qaadataa waxyaabihii talooyinkii ku siina aad qaadataa aad iyo aad ayaad mahadsantahay Dr. Maxamed sida wanaagsan aad barnaamijka igala qayb qaadatay iyo waliba sida aad nooga aqbashay adiga oo aan ku ogahay inaan mashquul aad tahay aad ayaad walaalkay u mahadsantahay waxaan jecelahay aan rajaynayaa dad badan inay ka faa'iideystaan talooyinkaadana ay raacaan anigaba aan ugu horeeyo aad iyo aad walaalkay u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa calaykum salaam waraxmatullaahi